maamulka degmada Balligubadle ayaa bilaabay hagaajin iyo biyo ka xidha goobaha ugu daran wadooyinka soo gala xarunta gobolka Balligubadle dhibaatada ku haya gaadiidka xamuulka ah xilliyada dhiiriga ay tahay wadadu maadaama ay hadda da'aan roobabkii dayrto duqa degmada Balligubadle iyo xogayaha fulinta dawladda hoose Cabdikariin Cabdiraxmaan Madar oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in bilowga wadadana ku bilaabi doonaan carratuul waxa ugu dhibaato badan 4 kiiloomitir aydanka degmada Balligubadle oo xoog gaadiidku u marayo ay dhibaatana ka haysto waxaan doonahay dawladda hoose aan bilownay inaanu meelaha aan dhigno carratuul biyahana ka jabino waxaan dhigi doonaa insha Allah boqolka loo horeeyo anaga dhig doona hay'adda gurmad relief oo dhaqaalaha ugu badan ku bixisa wadada ina sida ugu dhaqsaha badan hadii Ilaahay nafta noo daayo inay hawsha dhibaatada gaadiidka ka haysto inay wax nagala qabtaan anana waxaan ballan qaadaynaa anagoo inta dhigi doona 20 poster shaqaale u horeeya inay dawladda hoose bixinayso madaxweyne waxaan ka codsanaynaa wadadii gobolka Hawd iyo Hargeysa isku xidhisay kulay waxaan qabanay wixii kala harsan madaxweyne waxaan ka codsanaynaa inaad wax nagala qabato hadii dhamaan cidii ay khusayso tii hawlaha guud ay hadii kala aad iyo aad u mahadsantiin dhulkii ugu daraa ee gaadiidku galay shalay ama intii ka horeysay ay ku jireen inta ugu xun ee aanay soo dhaafi jirin baan doonaynaa inaan wax ka qabanno waxaan aad iyo aad uga codsan lahaa deegaanka waxba qaban kari mayno walaalayaal haddii aan cashuurta la iska soo bixin maamulku waxay wax ku qabtaan waa cashuurta haddaad bixisaan wax badan oo ama wada leh ama kaabayaashii bulshada u baahnayd ayaanu qaban karnaa waad ogtiin dhaqaalaha hayso degmadan intii aanu haynay baan waliba kolba halkii yaraydaadu eegaynay wax ilaahay ku tisanay aan wax kaga qaban guddiga wadada inay tash ka yeeshaan waxaan ugu codsan lahaa guddiga horumarinta u qaabilsan wasaaradda horumarinta jidadka inay xaggan soo eegaan Hawd waxaan aad iyo aad uga codsanayaa bulshooyinka ku dhaqan gobolka inay iska soo bixiyaan cashuurta intaasoo gacmaha isqabsatay oo dhan walba inteedii awood waxay lahayd ay wadadan soo eegtay waxaan qabaa in carratuul horta madowga hay dambeeyeen la dhigi karo dhanka kalena ganacsada Mawlid Maxamed Axmed kunool deegaanka ayaa sheegay in bilowga jidkana cadaha ka qayb qaadan doonaan anaga ka ganacsadaana hadaan nahay degmada Balligubadle waxaan ballan qaadanaa inaanu insha Allah taala ka qayb qaadano oo goor waxaan ballan qaadayaa in wixii maal looga baahdo iyo gaadiidka aan haysano anagu iskarogooyin baan leenahay iskarogoodeedu in wixii allaale wixii looga baahdo ay maarata dhigto imika waxaan ka sheegayaa 20 kiilo ugu horeeya inaan dhigo wixii dadka kale ganacsatada ee gobolka ama degmada u dhashana waxaan doonayaa wixii ay ballan qaadi karaan inay iyaguna ku soo iyaguna dhankooda ka hadlay wadayaasha gaadiidka xamuulka waxaana uga mahad celiyeen maamulka degmada Balligubadle siday ugu soo jeedaan siday u xalin lahaayeen dhibaatada xilliyada raxmaadka ee ka qabsata gaadiidka jidkan Cabdiraxmaan Samariye TV caalamiga Cable TV xarunta gobolka Balligubadle